mooshinkan oo ahaa mid kalsooni kala noqoshaha ayaa waxaa guddoonka baarlamaanka Soomaaliya maanta ku wareejiyay ilaa 50 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo sheegay inay wakiil ka yihiin 140 xildhibaan oo saxiixay mooshinkan ka dhanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay in marka ay fiiriyeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wada shaqayn la'aanta madaxda dawladda, gaarista higsiga cusub iyo hakadka ku yimid howlaha dawladda inay go'aansadeen mooshinkan si xal loogu helo arrimahan oo dhan. daqiiqado ka hor ku wareejinay guddoonka baarlamaanka mooshin kalsooni kala noqosho xukuumadda oo ay keeneen 140 xildhibaan loona soo xilsaaray kontomeeyo xildhibaan in ay mooshinkaas ku salimaan guddoonka baarlamaanka. waxaa goobjoog ahaa oo aan gacanta ka saarnay Jeenaali Nuur Eker, isaguna wuxuu ku wareejiyay guddoomiyaha baarlamaanka oo ah kusimaha madaxweynaha xafiiskiisa ayaan ugu wareejinay oo aan hadda joogno oo aan maaragtay ka hadlayno ayaan ku wareejinay. marka waxaanu saxaafadda iyo maaragtay xildhibaanada kale ee walaalaheenna ka codsanaynaa in xaaladda maanta dalku uu ku jiro waad arkaysaan. muddo bil ku dhawaada ma shaqaynin xukuumaddii, wax adeeg bulsho oo socdana ma jiraan. si loo kabo loogana baxo khilaafaadka iyo culeysyada iyo dhibaatada jira inay nagu gacan siiyaan mooshinkaas. markaan fiirin wada shaqayn la'aanta ka dhaxayso madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii, markaan fiirinay dalkii marxaladda uu ku jiro, markaan fiirinay higsiga 2016 in doorasho dalka ka dhacdo, markaan fiirinay in garsoorkii iyo hay-adihii kale dalka la hagaajiyo, xildhibaanadu waxay goosteen inay fududeeyaan howshaasi loo fuliyo ayagoo go'aan ku qaatay inay xukuumaddu kalsooni kala noqoto. maxaa yeelay xukuumaddu waad la socotaan waxay ku guuldareysatay inay shir jaraa'id qabato oo dalkaleeto ay la shaqayso madaxweynihii si dalkan loo sabatay dhowr san burbursanaa. 140 xildhibaan waxaan keennay mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaare Cabdiweli iyo xukuumaddiisa, taasoo aan doonayno inaan kalsoonida aan kala noqonno. maanta waxaa halkan galabta yimid 50 xildhibaan oo ay xildhibaanadii kale u soo xilsaarteen ayaa halkan yimid. mooshinkaas waxaa nagala wareegay guddoomiye ku-xigeen koowaad mudane Jeylaani Nuur Eker. maalin kor ayay ahayd markii kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku dhawaad 100 xildhibaan ay kaga soo horjeesteen in mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaaraha la geeyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaana arrintan ay muujinaysaa kala qaybsanaanta xoog leh ee xitaa dhex taala baarlamaanka Soomaaliya. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.